salaadiinta cuqaasha isimada boqorada iyo madax dhaqameedka kala duwan ee beelaha dega koonfurta magaalada Hargeysa iyo galbeedka magaalada Burco oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxay ka warrameen halka ay marayaan howlaha qabanqaabada shirweynaha ay sheegeen in dhawaan ay ku qaban doonaan magaalada Burco isla markaana ay kaga hadli doonaan danaha beeshaasi madax dhaqameedka kala duwan ee beelaha dega koonfurta magaalada Hargeysa iyo galbeedka magaalada Burco waxay si wada jir ay u shaaciyeen in aanay jirin haba yaraatee wax dib u dhac oo ku yimi shirweynahaasi sidoo kalena waxa ay ka dhawaajiyeen in waqtigii loo qoondeeyay shirweynahaasi uu qabsoomi doono gudoomiyaha guud ee beelaha dega koonfurta magaalada Hargeysa iyo galbeedka magaalada Burco Suldaan Axmed Cismaan Cadagude Boqorraab iyo waliba Suldaan Cali waxay si wada jir u sheegeen in shirweynuhu waqtigiisa uu qabsoomi doono isla markaana aanay jirin wax dib u dhac oo ku yimi sidoo kalena waxay fariin u direen dadweynaha beeshaasi ka soo jeeda ee ku kala nool daafaha dunida waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya sida la wada socotaan waxay guddiga guud ku dhawaaqday shirkaasoo aan u magacawnay guddiga qabanqaabada weegiiba mar ayaanu kala war qaadanaa siday u socdaan kolba hawlihii shirku iyo sida loo dardargeliyo marka shirkeenan maanta wuxuunbuu ka mid yahay aan idigu yeedhnay saxaafad ahaan in sidii caadiga ahayd aan isugu nimi kaasoo shirku uu ku waqtiyeysan yahay abriil 15keeda gobolka Togdheerna uu yahay kolba wixii hawlaha intaas na aanu ku kala war qaadano marka dhammaan gudaha iyo dibadda bulshooyinka reer Somaliland iyo cidda sida gaarka ah oo shirkan u khuseeyo waxaan leenahay timekii shirka iyo waqtigii shirka haba yaraatee wax iska bedel ma jiro wuxuu ku mudaysan yahay 15 abriil gobolkuna waa Togdheer waxa socda oo maanta noo soo gudbiyeen guddiga qabanqaabadu in la diyaarinayo goobihii iyo meelihii shirku ku qabsoomi lahaa oo la wada diyaarin la habeeyo shir jaraa'idkan wuxuu galabta uu daaran yahay runtii inaanu daafaha dunida meel kasta oo ay joogaan bulshaweynta shirweynahan beesha garxajis ay qabsanayaan meel kasta oo ay joogaan shirku sidiisii uu socdo inaanay jirin haba yaraatee wax dib u dhac oo ku yimi sida odayaashu ay u dhawaajiyeen iyo guddidu ayaanu la qabnaa haddaanu nahay mustambeedkii guddida guud waxaanu la qabnaa sida shirkuna sida ay hawl maalmeedkiisu u socdo waanu ku ayidsanahay kula shaqaynanaa uu taagan yahay wax iska bedelayna ma jiro waqtigu waa 15 abriil meeshu waa gobolka Togdheer saacad kama dambaynayo waqtigaan u qabanay Cabdi Fataax Xasan Xuseen Xareed Kalsan TV Hargeysa